sida uu ku waramayo wariyaha sportska faalooda ee la yiraahdo Fabrizio Romano, Arsenal iyo Man City ayaa heshiis buuxa ka gaaray sidii kooxda Arsenal ay ula soo wareegreed ciyaaryahan Gabriel Jesus. Arsenal ayaa 45 milyan lacag gaaraysa bixi doonta. Sidoo kale ilaa hadda waxa wada hadlaya ciyaaryahanka wakiiladiisa iyo kooxda kubadda cagta Arsenal ayuu ka wada hadlaya mushaarka ciyaaryahanka oo qaadan lahaa. isla daqiiqado ka hor sidoo kale wuxuu sheegay wariyahan aad lagu kalsoon yahay markay timaado warinta xagga suuqa kale iibsiga. Arsenal iyo Tottenham ayaa isku haysta ciyaaryahan Robinho. Barcelona kuma jirto heshiiska in mantaqana saxiixashada ciyaaryahankan ilaa hadda wax heshiis lama gaarin. lacagta ay doonayso Leeds-na waa 65 milyan oo pound oo lacag aad u fara badan. isbuuca soo socda ayuu leeyahay wariyahan wuxuu noqon doonaa isbuuc aad la wada sugayo aad muhiim u ah marka la fiirsho mustaqbalka ciyaaryahankaasi.